السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاله الصوماليات وإذن سلامي سيدي إيتين الحمد لله أننا نوافي عنها إلهي بما هذا إسكالا إيا مركلا إيا مقال كلا إنني صدوبة إلهي بما هذا أسقناتي الحمد لله شكر الله إلهي بما هذا إسكالا إذن كنا سيدا سيدي رجينا دمانتين ولاله الصوماليات waxaan idin waday qaybtii part 3 maalin hore waxay ahayd part 2 oo mataqaanaa qasadii ahayd masiirka oo after 40 years guurkii burburay maxaa ka dambeeyay oo ninkii naagtiisa qayaanay insha Allah waxay inooga ekeed horta waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin dadka mataqaana ay like gareeyeen ay share gareeyeen oo mataqaana subscribe-kayga aad ayuu u yaryahay inta fiidiyoyaasheeda fiirsato oo views iyo isma dhama subscribe-ka aan leeyahay subscribe-ka ma aha lacag kaama gadno walaasha Soomaaliyeed ayaan ahay marka waxaan rabaa fiidiyowga haduu ku soo gaaro khayr badan Allah ku siiyo subscribe-ka ka iloobin inaad subscribe gareysid iyo like gareysid iyo share gareysid marka lacag kaama joogo waa iska just free inaad farahaada ka nuuxsiisid haduu ilaahay yiraa ilaahay waxaad jeceshahay ku siiyo fiidiyowgeeda ku soo gaara subscribe-ka ka ilooba channel-kayga sheekooyin badan oo jeceshahay oo mataqaana kugu soconaya ayaa insha Allah aad igala socotaa koob ismulina soo qaata hadaad rabtid shaaha ka heshin shaaha soo qaada shaaha isku daadin wayna kugu soconaysaa quiet price marka ilmaha ka kala saxdaan ama mataqaana adoo buuq ku jirin dhageyso insha Allah waxaad ka faa'iidina ka qaado waxaad kala faa'iidina insha Allah qashanka iskaga tuur laakiin waa washa ka dhacday mataqaana oo run waa marka waxa dhacday wax everyday dhacana waxa wala sameeyo waa nimanka ay sameeyaan inay ku qayaanaan faanti marka waxa dhacday waxa inoogu dambeysay gabadhii maamadii oo mataqaana laga tagay oo baratay nin kala oo pilot ah oo hal gabar weyn oo gabar dhashay oo leh oo naagtiisana ay ka dhimatay oo naag qabin oo wuxuu la degan yahay walaashiis iyo gabadhiisa iyo gabar ay dhashay isla degan marka guriga isla degan yihiin marka asaga badan waa maqan waa pilot waa dooliyo waa insha Allah waana ka diyaaradaha dooliyo marka oo nin aad u degan oo fiican marka ka qurux badan ninkii ayada ka tagay duqi ayada ka tagay oo qayaanay hadii si loo fiirsado ka qurux badan ka lacag badan mataqaana waaye marka ninkaani ninkeed only businessman ayuu iska ahaa meelaha iska ordo ayuu ahaa marka ayadana saloonkaas u joogo meelahaas markaas uu ku biilay marka waxa dhacay inay maamadii ninkii ugu imaaday saloonkii gabadhii yareedan ku dhahay oo awowga u ahaa oo saloonka keenay horta waa idin soo kala sheekada waatana intuu soo qaad wixii isku barteen ayadoo ooynayso arkeen ayuu gaari ku dhufan gaaray asaga oo jidka maraaya ayuu ku dhici gaari break ayuu qabtay marka wuxuu dhahay maxaa ku dhacay oo arkeen gaariga socdo marka wuxuu dhahay right kuma siya right-kii soo kortay gurigeeda ayuu geey marka intay gurigeeda ay sii socdeen wuxuu ka fiirnay haadka daaqada muraayada qofka gadaal fadhiyo waad ka arkaysaa marka ayuu ka fiirsan inay ooynays marka ugu weydiiyay wixii uu ooynaysay dhibaatada haysta markaas ay u sheegtay wixii 40 years marriage ninkii inuu iqayaana oo iga tagay gabar yar oo gabadheeda la qeyr ah inuu iga tagay bay tiri ay ugu sheekaysay kabacdi wuxuu ku dijiyay markii aad u ooynaysay wuxuu dhahay waa iska adduun waad ka baxaysaa for sometimes marka waa adduunyada wuxuu wax walba ku soo maraan wuu waaniyay intuu waanin kara laakiin intay ooynaysay intay ahayd iyo qsidee tahay asaga way dhax gashay oo reeday ninkan he was having interest ayuu markaba u qaaday isla markii markaas laakiin ay situation ayaa hayay la dhil gareynaysa marka odaygii qalbada ninka marka wuxuu sii kaarkiisa ayuu sii wuxuu dhahay anything mataqaana hadii aad rabtid inaad igala hadashid kaarkayga waa kana oo magaciisa iyo ku qoran yahay laakiin iyada wali ma wicino nin daba mataqaana qofka markuu dhaawaca waxa soo kale u arka
يعني qof kala maba sii siinaaba interest because waxa uu la dhiilgaraynaysa ayaa ka badan. waxaa dhacda marka ninkii inuu marka saaluunka haddana marka ay mar labaad haddana asoo gabadhiisii yarada uu ahaa oo keena madax inuu hagaajirib uu ku arkay ayada. Wow, is it you? Ha, anigu waa kana sidii la isku salaamay. Gabadhii u hagaajisay saaluunkii, ninkii aad u farxay. Wuxuu dhahay marka waxaan rabaa inaan mataqaana aan ballan oo uu ballamiyay adiga inay meel ay ku ballamaan. meel ayaa lagu ballamay inay wada tagaan mataqaana ka faysal soo cabaan oo mataqaana wuxuu dhahay serious waxaan rabaa mataqaana xiriir ayaan rabaa waa kaas markuu ay ka ogolaatay ayada markii qaybtaas iyo taas waaye qaybtii odayga ayaan ku soo hartay. gabadhii yareed uu guursaday arooska waxa bixinaayo odayga gabadha dhalay. waa idin sheegay odayga gabadha dhalay wuxuu ahaa nin rich ayuu ahaa. ninkaana waa business yar oo iskaysto wax lacag badan oo hadda aroos weyn lagu dhigayo mal haysto. duqdiya ka qalqaalis maadaama only one kaas gabar ay leedahay gabadhina ninka u dhimanayso waxa la marka waxay ka qalqaalisay inuu arooska lacagta bixiyo odaygan oo gabadha dhalay. arooskii waa loo dhigay uu aroosay meel uu degsaday habi uu galay. okay habi ha gala muxuu hadee islaantaadii weyneed oo 40 years aad wada joogteen waxay taqaanaa waxyaabaha adiga ku roon. maraq bay u hagaajin jirtay, waxbay u sameyn jirtay, in la way taqaanaa waxyaabaha caafimaadka u sameynaysa. abay gabar wax may hagaajinay gurigooda waxba ka soo qabanin bay yaa maalin boodiga sida loogu soo godayo loo tag away loo soo dalbanay tag away maxay u taray marka nafaqa mal waxba ma haysto. odayga qof baa ku dhacay qof ciisaan ku dhahay meesha markuu xaq fadhiyo qof aan ku dhahay dadku way soo fiir halla ilaahu qof kugu dhacday gabadhii yarad what bahal qofac buu xagga la fadhiyayaan ku leeyahay ya ala jabka jeceliye ana jabkaas waa igu baxdaa ma fahanteen. bahal qofac aan ku dhaawdigay buu ku hayaa maanta dhan. abaahele xiisadii hore way ka dhamaatay ilaa naagta kale lama aadaa iyada la wada daba taagan yahay. gabadha waa idin waa gabar yar oo lagu soo barbaariyo manyac laga badiyo oo nin rich dhalay oo ninkan nin aabeed la eg waayo ma fahanteen. so gabadhii iyadana xiisii adee waa ka dhamaatay ma fahanteen. is just only xiis waa ogtiin adee waxa aan realka ahayn mugta ma socdaan. realka waa waxa not oo waxa aan realka ahayn is just only xiisaha ugu horeeya. gabartana bahal wiil ay heshay oo age-keeda de hal wiil oo age-keeda bay heshaan kale odiga marka qayaano loo dhigaa ma fahanteen. qayaano axada hoos lagala xiriiraya axad ka salaada soo ciyaaraya anta waa lagu maqan yahay cunto gurigaas ma laga kariyo waxaan ku leeyahay tag awaygaas loo keenaa loo dalbaa asaga dalbana gacantiisu ku dalbana ma fahanteen. wixii la xishmeynayo wax loo soo sameynaa maraqo wax loo soo hagaajinayo suudkiisa loo hagaajinayo wanaag waxa aad u tagagaras ayaa qabtay oo yani dhaqankiisana baratay waxyaabaha uu rabin in 4 years de 4 years ma yar ma aha. 4 years is a lot of years waa aadin ugu dadaali jirtay aad ugu dadaalaysay xaqiisa caafimaadka. odaygii waxaa ku dhacay inta soo jiro horta qofa waxaan ku leeyahay asma iyo balaay iyo wax loo kala garan waayo sokor balaaya ku soo boodiyaan ku dhahay isbitaalka maba ka baxaba. isbitaalkii la dhahay yaa ayuu waxaan ku dhahay saas ugu sii socdaa le ma fahanteen. isbitaalkii asoo ku sii socda oo ku soo socda
baa maalin maalmaha ka mid ah ilaa ninka dhakhtarkiisa asaga ah bay naagtan xiriir la leedahay uu dhakhtarkiisa oo hadda ka hor aadayay ilaa marka waxyaabaha iyo uu ku noqonayo ilaa israacayeen baa xiriir la soo yeeshtay ma fahanteen ilaa uu jeeda ninka inuu ka weyn uu arkaya xiriir la soo yeeshtay ninkaas xiriir la yeelatay ninka marka wuxuu dhahay dhakhtarkii uu balantiisa la lahaa uu balanta dhigtay balanta dub dhigataba naagtiisa ayuu meel ku haystaa oo ugu soo horeyso sakariisa marka balantaas imaaday balantii marka loo yeeray intii marka meesha marka laga miisaamay meel oo sidan camal oo looq oo geeskan ah baab waxaba taaganba oo saa loo haystaa gabadhiisii uu qabay ba qosolka ka dhacaya odigana odiga lacagtiisa leen ka dhameynaya ana ma rabo lacagtiisa leen ka dhameeyna asaga marka dad bixi doonay naagtiisa uu ku noqon doonaa maana time ba uu odiga oldki I just use him idoo dhaysa dhagtiisa lee ku dhacday dhagti le saale haduu dhaab waaba naagta wala kala carran ku wala kala carran ma fahanti la kala carriyaan ku dhaa dhakhtarkii muu aadin meeshuu ka cararay gurigu ku noqday gurigu markuu ku noqday Allahu akbar islaantii sugay way imaatay gurigu ka bixiyay bas soo dhahay anama saas idhees naagteedii 4 years kan kaaga soo tagay naagteedii heblaan kaaga soo tagay naagteedii waa u darsaday waa naagtu dhahayaa naag doq waa ka ciino naagteedii maanta ka soo tagay jiro ani jiro waas aragna faanti islaantina marka jacaylaba ka shaba new level ay ka shaba oo jacayl odigii ba waxaan ku leeyahay bahal jacayl intuu u qaaday oo inta soo sano naagna muu aroosan isla markii naagtiisa dhimatayba dib naag muu aroos gabadhaas soo korsaday taas sad waska dhaaf waxaan ku leeyahay waxay ku jirtaa dalxiis inta gii meerigi halka gii inta ka sii xagga u wad yaa waa laga dhaqan ku waa laga dhaqay saasa loogu dhaqay wixii soo maray kamera ma maqal jirtiin wixii ku soo maray kamera ma maqal jirtiin haad shawara laga qaataan ku ilaahay ninkaas uu sahlan ku leeyahay dalxiis la geeyaan ku leeyahay lacagtaas loogu daadiyaan ku leeyahay wuxuu ku rabaa inaan ku guursadaan rabaa waana ku jeclahay la'aantaada ma noolaan kari gurigan ku gadayaa la yiri ma fahanti yaa aniga adiga ilaaha baa lagu yiri marka odigana waxaan ku leeyahay qof uu ka bixi waayay hadatiina waa uu buriyay odigii markuu tii buriyay guriga markuu ku soo noqdana waxaa la dhahay odigana waa anii sheegay odig taajir uu ahaa odiga wuxuu ku dhahay gabadhaadu ay qiyaanayso ku dhahay hadda laga saacada laga bilaabana na waa iga tagtay u dhahay inaan furaan rabaa marka furitaanka ay waxa maxkamadda isku furayaan warqad in la saxiixid waay waa isma furitaanka oo saama waa ina you have to sign out ina saxiixid waa burinka oo naagta ninka ay saxiixan ka bacdi waa in la saasar isku furaayay marka taasna is taken so yani wax oo isla markii dhacay amal ma aha soo waxaa dhacday inuu guriga ku soo noqday asiga qof ay wato yaa surwaaladii waxaan ku dhahay bulq ay ka dhacayaan rafaadka iyo duufta ka muuqata adiyaabaysid yaa albaabka go ala soo sii go bariga ka jaqaafiya de bariga u sangareynaysa ugu dambeys dib damba hatta dadaaba halaw isoo dhahee yaa halaw daba gabadhiisii ninkaasi oo markaas dhignis jaamacada halaw dib damba uma soo dhihin walaal nimanka noocaas oo kale kan maxaan Soomaali maxaa u galan hada Soomaali ma kuwan laakiin Soomaali maxaa u galan kuwan nimanka dhan sometimes waa dad sima dheesa waxaan ku leeyahay albaabka de go islaantiyo waxaan ku leeyahay raaxaysanayso
intay waxaan ku leeyahay wejiga wax marsatay timahana bahalka ku duubatay bookatiin ku duubatay ballan lale ninkii inuu guriga ugu imaado oo is aroos rabaanba yaa guriga gow la soo siiyey isdheeskiya ma dhaqso soo noqday miyaa dhaqsi imaaday miyaa hadday fiirsaba waaba axadkii waxaan ku dhahay surwaalka dhaco qof waxaan ku dhahay ku haya what in maxaa ka samaynaysaa la yiri I'm so sorry maxaa ka wadaa la yiri I'm so sorry ma soo gali karaa soo galay tire anima soo gelinaa ma dhihi lahaaba soo galay tire waa fariistay maxaa ku hayaa la qufciisaa la yiri maxaa kugu dhacaa la sig maa noqotaa la isbitaal maa jiibtay marlil maa noqoto maxaa qaldan maxbaa waa kugu darsadayo inta soo jiraa laga helayo cunto la-aan baa i dashiyo balaayo qof naagti way qayaanaysiyo waa iska buriyo kaligay baa noolo gurigu ku soo noqon karaa la-aanta ma noolaan karin asagoo sheekada dareerinah oo ayada hal jawaab ay u bixinin baa waxaa ka soo galay albaabka gow kii ay sugaysay isku diyaarinaysay yaa wuu soo galaa lahay waa lasoo furiisto waa la hagriya asagoo baraanka taaga bartagi asagoo fadhiyo waxaa lagu yiri ninkaan ku barayaa waxaa waa fiyaansigiiga la ninkaan aroos rabo waa kana pilot waaye hebel la dhahaa waa inaad baratida la yiri ninkaan waxaa lagu dhahaa waa ex husband cake waaye hadee waa kana hadee way iskaga baxdaan ku dhaayada markaas diyaar ma ahayn bahalay bogtiin waxay baahday soo diyaarsatay masqusheeda waxay gashay labadooda sheeka iskaga baxdaan ku dhawaxaa lahaa maxaa la yiri nasiib badnidaale oo haddana nasiib xumidaaya lagu dhahno ninkii oo naagta aroos rabay dhahay waxaa la ma gabadhan uu alla ku siiyaa la yiri oo 4 years ad qabtay la yiri ka tagtay gabar yaro walaash oo gabadhaadi camal la qeer waxaa la raacday yaa tan inuu alla ku siiyey baad haysan weysaa la yiri tan horta nasiib waa la hedaa tan horta heshaa la yiri idoo yar ka bacdin waxaa la nasiib la-aanta ku haysaa la waad haysan weysaa la yiri waad ka tagtay marka waxaa la anay ay isku faatixaya la yiri ma fahantiin anay waxaa la the rest of the life keeda kala u dhameynaya la yiri adoo u dhameyn weyse ana u dhameynaya la yiri bal ana ay hobaan waa la yiri inaan waxaa la nolol farxad leh ay ku noolaa doonto the rest of her life and no more worried ina naagta bakar aniga naag aan ka raacayna la yiri faanti goos am already tired of all that inta soo sana naag laan ihayso naagteed way dhimatay soo ayada daa set ayada hadaan helaa la am done women ayada ugu filan odayga indhuhu tagtaagan korasuu tagtaagan soo tagtaagan wuxuu dhahay I wish you best isagoo dhahay oo qof cina wada qof cina saas u qufucayaan ku leeyahay ayuu albaabka ka baxay ayadana ninkeedii ayaa bahal aroos loo dhigaa ku leeyahay arooskii ayaa dhigatay waa la aroosay odaygana waxaan ku leeyahay gabadhii waa furay yaa naagna maysa gabadhiisina way ka carartay waxay tirku umur soo raadinay isbitaalkii asagoo ku jiro oo isbitaalkii uu galay jiradii ku badatay because a lot of waxaa laga helay jiro ayaa laga helay odaygii isagoo isbitaalkii iyo ku jiray islaanta ninkii bay aroostay nolol waxay gashay aad u raaxo badan ayay heshay marka meesha waxaan ka qaadanaynaa halkaas ay ku dhamaatay qasadii meeshaas marka waxaan ka qaadanaynaa waxyaabo badan haddii ay jirto inuu mataqaanaa xabadkii inta soo sano ay wada joogteen oo lacala kaa taga don't lose hope waxaa dhici karto mid ka qeyr badan ka lacag badan wax walbaba asag ugu fiican in alla ku siiyaa dhici karto marka weligaa yani hoobkaada yani hoob la-aan iyo kugu dhicin
because wax walbaba alla ayaa qora, wax walbana alla ayaa bixi, deeqdana alla ayaa bixiyo. hadduu hal dhowr kaa soo xirmo annada dhowra kuu furmayso. one dhowr ayaa ka soo xirmay naagtaas 4 years ninka ay soo haysay waa ka dharku ka baxay, dhowrku waa ka xirmay, annada dhowr kale ayuu alla u furay oo waxay heshay yaa nin wax walba u qabto. ma fahanteen? nolol kala geliyey ayay heshay. marka ana waxaan idin dhihi lahaa gabdhaha Soomaaliyeed don't lose hope, always ilaahay isku xir. marka waxba ha isugu halin ninkaanay talabadiina ilaahay moodin iska dhaxbaxanay moodin shalay ayaad aragtay anytime uu bixi karaa, ama 40 years kaaga taga, 50 years kaaga taga, 70 years kaaga taga, 20 years kaaga taga, 5 years kaaga taga. It's the same kali waan fahanteen. So markuu kaa tago, still the door, another door is open for you always. This one is closed, there is other one open. ma fahanteen? marka niyadda weliga ha iska dilin, weligaa naftaada kor u qaad, naftaada kor u qaad. haad shaawar qaado, adi horta wax iskeli, fikirka iska yaree, cuntada cunaysid cun, exercise samee, yaa air fresh sameyso, ilaahaygaada bari, waa ka baxaysaa ayaan ku leeyahay. saasaa lagaaga siibaaya. mid kaloo waxaad helaysaa aan ku leeyahay 2 jibaar asagaan u dhigmina heli doontaaba. marka waxaa idin leeyahay aad ayaan idin jeclahay. I hope inaad enjoy garayseen. That's part 3 ayay noqonaysaa. qasa kalaan soo wadaa haddana taasna ka daran ayadana. marka waxaa idin leeyahay sidaas ayaa idinka tegay khayr iyo barako. ilaahay khayr ha idin siiyo, inta jiran ilaahay ha caafiyo, qof walba meeshuu mataqaanaa uu wax ka tirsanaa ilaahay ha siiyo, qof walbana ilaahay walbahaarka iyo mataqaanaa ilaahay naga bixiyo. waxaan jecelnaa oo jannada ugu horeysana ilaahayna wada sii dhammaanteen, jannadana waa noo wada ballan. subscribe-kan ha iga iloobin, waa free walaashey qaaliga ah. subscribe-ka ha iga iloobin, subscribe-kayga ismale iyo mataqaanaa iyo views-kayga kor ii qaad, haddii ilaahay kor ha kuu qaada. sidaas ayaan idinka tegay khayr iyo baraka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.